kulanti wacan daawadayaasha sharafta leh ee ku xiran channelka Yankeenan ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaan ku soo bandhigi doonaa qiso jacayl oo murugo iyo calool xumo leh. Qisadan oo uu magac daray Jacayl Faqiir Galay. Haddaba qisadan murugada leh waxay ka dhacday magaalada caasimadda ee Muqdisho. Qisada waxay ka bilaabanaysaa sida tan: arday jaamacad dhiganaya ayaa fasax ka qaatay jaamacadda uu dhiganayay, wuxuuna u sheegay berido inaysan imaan karin sababtoo ah wuxuu rabaa inuu doondo gabar jaamacadda la dhigata. Gabadha waxay ka soo jeedaa reer lacag leh, wiilkana waa agoon oo faqiir ah. Wiilka wuxuu u tagay gurigii gabadha, wuxuuna arkay aabaheed iyo odayaal lacag leh iyo kuwa shaxaad u yimid odayga oo meesha wala fadhiya. Fursad gaar ah ayuu ku raadiyay odayga si uu la hadlo. Odaygii markii uu arkay wiilka inuu rabo inuu la hadlo, wuxuu ku yiri, ii sheeg waxaad rabtid, waxba ha iga qarinin. Wiilkii wuxuu yiri, adeer waxaan rabaa gabadha aad dhashay ee hebla ah inaan guursado, ayadana ka soo doontay. Odaygii qusul ayuu ku dhuftay, kuwa ag fadhiyeen uu u camireen qusulka. Odaygu wuxuu yiri, isma aragtimiya wiil yahow inaad tahay sida geed aan jirid lahayn, sababtoo ah kaliya ayaa meesha yimid. Waxaad tahayna way ka muuqataa ee shaha cab aan ku siiyay nagana tag. Wiilkii jaamacadda ayuu yimid maalintii xigtay, isagoo murugaysan ayaa fasalka soo galay. Ardayda fasalka kula jirtay iyo macallimiintiiba waxay arkeen murugada wejigiisa ka muuqata wiilka. Macallinkii ayaa weydiiyay waxa ku dhacay ardayga, sababtoo ah wuxuu ahaa arday la jecel yahay oo dadaal badan. Wuxuu u sheegay sababtii, weliba asagoo ilmo ka qumanaysa. Macallinkii jaamacadda wuxuu yiri, waxba ha ka walwalin, xal ayaan raadinaye. Ardaygii wuxuu yiri, waxay igu caayeen inaan dad lahayn oon faqri ahay. Macallinkii jaamacadda wuxuu la hadlay barayaashii jaamacadda oo dhan, wuxuuna yiri, aan garab istaagna wiilkan agoonka ah. Waxayna diyaarsadeen gawaarida raaxada oo badan, haddana qurxoon. Ayagoo hawsha ku jira waxaa maqlay maamulaha jaamacadda, wuxuuna yiri, waa idin raacayaa. Waxayna soo wateen maamulka Banaadir, mid ka tirsan oo caan ah. Haddii hataa odayga lacalla u diido inuu bixiyo gabadhiisa si looga ceebeeyo oo weligiisba loo wacaya. Waxay tageen guriga odayga, waxaana hortagay maamulihii jaamacadda iyo kuwii maamulka Banaadir ka socday iyo inta kale oo la socotay. Maamulihii ayaa odayga ku yiri, ma i taqaanaa? Odaygii wuxuu yiri, haa, maamulaha jaamacadda ayaa tahay, ee maxaa darnaa? Maamulihii wuxuu yiri, wiilkan agoonka ah adeerkiis ayaan nahay. Raggan meesha taaganna qayb ka mid ah waa ardayaashiisa, waxaana rabnaa gabadhaada inaana siiso. Odaygii wuxuu yiri, sharaf ayaa ii tahay in gabadhayda aad soo doontiin, waana diyaar, waa idin siinayaa. Maamulihii wuxuu yiri, meherka hadda ayaan samaynaynaa, arooskana waa usbuuca soo socda. Dumarkii guriga joogay markay maqleen, hal marna ayay wala alaaseen. Analaaskii ayuu ku soo kacay ardaygii, wuxuuna isdhahay, wallaahi waxay ahayd riyo wanaagsan. Wuxuuna arkay inuu imtixaanka ka daahay. Markii uu jaamacadda tagay, wuxuu lagu dhahay, imtixaanka waa ka dhacday, waana ku celin doontaa. Daawaday, haddaad ka heshay qisadan, like saar muuqaalkan.